kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta uu doorroon waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Buntland oo isagoo careysan la xiriiray Rajaar Khayre kana dalbaday sharaxaad dheeraad ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo sheegay inuu fashilmay imtixaankii ardayda Buntland u fariisteen Muse Biixi cabdi oo Ciro dusha u saaray masuuliyadda dib-udhaca doorashooyinka maamulkaasi Buntland oo jawaab ka bixisay hadalkii ka soo yeeray wasiir godax qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo maamulka Buntland madaxweynaha maamulka Buntland Dib-udhaca ayaa si aad ah u carooday hadalkii ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya godax barre ee ku aadanaa in imtixaankii dugsiga sare Buntland sida ilwareedi lagu kalsoon yahay sheegeen godax barre ayaa sheegay inuu fashilmay imtixaankii Buntland oo shalay si rasmi ah u daafuray madaxweynaha maamulka Buntland Dib-udhaca imtixaan waa fashilmaa saacadan la joogana Buntland imtixaan ayay qaadaysaa wuuna fashilmay hadalka godax ayaa sida la sheegay aad u yaabiyay uguna careysiyay madaxweyne Dani maadaama aysan jirin inta loo yahay imtixaan fashilmi oo baahay Dani ayaa la sheegay inuu xiriir degdeg ah la sameeyay Rajaar Khayre kana dalbaday in wasiir godax sharaxaad buuxda ka bixiyo hadalkii dhaawac xoogan ku ahaa sharafta imtixaanka Buntland Dani ayaa sida la sheegay hadalka godax u arkay mid ku talagal loogu dhaawacayo imtixaanka Buntland maadaama Buntland ka guuleysatay godax doodii hore u dhaxmartayna labada dhinac kadib markii Buntland diiday inay qayb ka noqoto imtixaanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Buntland oo markii hore ku dooday inaysan aamini karin hanaanka dawladda Soomaaliya ayaa warkeedu u rumoobay markii uu fashilmay imtixaankii dawladda oo suuqyada laga helay waxaana hadalka godax loo arkay mid lagu xumaynayo Buntland Dib-udhaca ayaa shalay si rasmi ah u furay imtixaanaadka dugsiga sare ee maamulka Buntland kaasi oo ay u fadhiistaan in ka badan 15,000 arday hadalka ka soo baxay wasiir godax ayaa waxa si weyn ugu hor yimid masuuliyiinta maamulka Buntland kuwaasi oo sheegay in ku talagal uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya godax barre ayaa sheegay inuu fashilmay imtixaanka ardayda Buntland maanta ay u fariisteen godax barre oo ka hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in imtixaankaasi uu yahay mid fashilan sida uu hadalka u dhigay imtixaan waa fashilmaa saacadan la joogana Buntland imtixaan ayay qaadaysaa wuuna fashilmay ayuu yiri wasiir godax wadamada daraska noolahana waa ka fashilmay ayuu yiri godax barre arday gaaraysa 15,800 ayaa shalay u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee deegaanada Buntland madaxweynaha Buntland oo furay imtixaankaasi ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya lagu baahan yahay inay wax ka barato habka nidaaminta imtixaanka ee Buntland wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku fashilantay qaadista imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka kadib markii qishka imtixaanka suuqyada lagu arkay intaas kadib dawladda Soomaaliya ayaa joojisay imtixaankii guud ee dugsiga sare madaxweynaha Soomaaliland Muse Biixi cabdi ayaa ka hadlay khilaafka muddada badan qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muse Biixi cabdi ayaa ka hadlay khilaafka muddada badan ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay xisbiga wadani oo isagoo ka biidiidan komishinka doorashooyinka isla markaana raba in la kala diro Biixi ayaa sidoo kale wuxuu baaq u diray xisbiga wadani iyo taageerayaashooda wuxuuna yiri waxaanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano oo aynu waliba tusaale badan u sameeyno wax kasta oo xisbiyada mucaaradka ay tabanayaan oo ku saabsan doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadani oo ah xisbi sharaf iyo karaamo mudan iyaga iyo taageerayaashooda walaalayaal waa inaad doorashada ka soo qayb gashaan wixii aad naga codsataan gaar ahaan gudoomiyaha oo ah si gaar u diidan doorashada waxaynu danta ku jirtaa in taageerayaashadu ka soo qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ayuu yiri madaxweyne Muse Biixi cabdi oo dhaliil kulul u jeediyay hogaamiyaasha xisbiga wadani agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Buntland Maxamed Cali ayaa ka jawaabay hadalka wasiirka waxbarashada Soomaaliya ee ahaa inuu fashilmay imtixaanka Buntland Maxamed Cali ayaa sheegay in imtixaanka Buntland ay si habsami leh u socdaan isla markaana maalintii koowaad uu ku soo dhamaaday si wanaagsan ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Buntland waxaa si habsami leh u socda imtixaanka shahaadiga Buntland
dhammaan xarumihii maanta si guul ah ayay ku soo gabagabeeyeen maalintii labaadna ayaan u gudubnay dhammaan howlwadeennada iyo ardayda imtixaanka guul ayaan u rajaynaa ayuu yiri agaasimaha wasaaradda waxbarashada Buntland ayaa sheegay in hadda Buntland ay hiigsanayso waxbarashada qaaradda Afrika isla markaana ay u gudbeen deegaanada kale ee Soomaalida wuxuuna u mahadceliyay dhalinyarada dhigata iskuulada kala duwan ee deegaanada Buntland isagoona sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii waxbarashada loo soo tayeyn lahaa hadalka agaasimaha ayaa ku soo beegmaya saacadoon kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre oo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle uu ku dhawaaqay in uu fashilmay imtixaankii Buntland guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media tan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo